كنت waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan si walba muuqaalka idin soo gaarayo soo dhawaada anoo qosl ah soo galay because maanta oo axada suuqii kala iibsiga ciyaartooyda caadi u qarxa macnaha wax ka yar horyaalka Premier League furitaankiisa waxa ka dhiman 25 biri kooxihii waxay taagan yihiin ciyaartooyda u baahan hadda noola keeno saakay waxa lagu waabariistay Isaaq Beedabo inay la wareegeen kooxda Liverpool waliba lacag dhan 95 milyan Man United oo soo bandhigtay Ryan Mbome sheeka kaaga haya Isaaq Beedabo ikatike sheeka kaaga haya Liverpool si loo khiyaano taageerashooda kooxdii Man United ahead oo isku soo dhax tuurtay ciyaaryahankii Arsenal wada hadalku socday waqtiga dheeraay soo dhawaada haddii ay tahay markaad kuugu wareyso ana soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad page-ka follow dhaadid laagtaada u baahannahay haddii aad hore ila joogtay waa ku maasantaa la joogistaada sii share garay oo saaxiibada la wadaag soo dhawaada waayo warbixintan haddii aan ku bilaabno ciyaaryahankii saaqii lagu dhawaaqay ee kooxda Liverpool ay la wareegeen sheekan kaaga hay muku dhino soo dhawaaw huuke maxaa yiraahdaa huuko ikatike fiiri kooxda Chelsea al-Adala soo baxday 2025 baa marwa al-Adala helnay kooxda Chelsea ee ciyaareedka hore kii ka sii horeeyay ciyaartoy dhowr marka la soo wareegaynay ciyaaryahan walbo magaciisa adeeg u ahaa kooxaha mucaaradka waa nugu diganayeen hebel waxay la soo wareegeen Vavana Leslie Nkwaka Nkumamaka كوكو مدواك فيري العيارات كان معارض قدنينا معناها شاكدي او قدنينا معارض ارسنال وقت امانه وحلو ريجين نون مدواك فيري سيسك سو سocdo inay magacyada si fiican loo dhawaaqal rabaa lambar 2 kooxdii Liverpool ahead waxay la wareegeen Hugo Ekitike magaca halis waay taageerayaashu waxa loo baahay inay ku celceliyaan si u bartaan balse sheekada aan kaaga hayo ciyaaryahanka Hugo Ekitike oo Liverpool lagu qiyaanay 95 milyan taageerayaasha Liverpool loogu naxsay saakay waxa waaye sida la socotaan kooxda Liverpool dalab waxay ka gudbiyeen Alexandro Isak 120 milyan Soomaan haba ahaatee Newcastle waa soo diideen dalabkaas kooxda Newcastle pre-season koodii shala bilowday waxay la ciyaareen kooxda Celtic ee ka dhisan dalka Scotland Newcastle halkaan ka baxeen Scotland ka degteen waa baashaalayeen macna isaagoodi waa wateen balse macalinka ciyaarta ka hor shalay wuxuu yiri ciyaaryahan buuq oo ku furan yahay mar raba inaa ciyaarsiiyo wuxuu ula jeedaa Isaaq mar raba inaa ciyaarsiiyo balse Newcastle afri ever la kiciyay kulankooda pre-seasonka afri ever Isaaqna waxa loogu tagay hotelka taageerayaasha Liverpool oo xalay been isku sheegay iska dhaadhiciyay ku farxay in Isaaq la wareegi doonaan maadaama macalinka uu yiri ciyaaryahan buuq ku furan yahay suuqa yaalo marab ina ciyaarsiyo wuxuu maleynayay inay Isaaq helayaan balse saaka waxa loo keenay Hugo Ekitike habay magaca halis waa Ekitike fiiri waliba lacag yar imaan 95 milyan هذا يكتيك 95 مليون يورو laga bixi 82 milyan waxa waa pound Jackson ma yaqoon qona Nicholas Jackson ma yaqoon milyan ka bixinayna adile waa qaybta soo la wadaag warka hadda soo dhacay marka kooxdii Man United ahead meel aan la isku soo dhax tuurin goday macnaha madax la galeen waxay dalab waali ka gudbiyeen ala leeyahay suuq hadda wararka yaalo waay ninkii ahaa Victor Yegores la socota Yegores kaliya wuxuu dhahay teleefankayga waxaan ka qabanaynaa kooxda Arsenal koox kale marab ciyaaryahan hatta aabiis uu ooyay sida cunugiisa ugu ciyaaro Arsenal ma ka yeelaa inuu Man United ku biiro koox horyaal ku dhameystay ciyaaradka hore kaalinta 15aad ma yeelaa inuu ku biiro fiiri ciyaaryahan konton gool dhaliyo ma rabo inuu ku biiro koox meesha joogto Arsenal kaliya waxa ka dhiman striker haddii ay helaan inuu horyaalka qaadayo aaminsan yahay ninkan daas way u doortay Arsenal inuu kaliya ku biiro Real United qacweyna laga yeersi macna
balse Man United waxay la heshiin rabaan oo ugu dhow yihiin inay la heshiiyaan Arsenal kaga dhow yihiin Sporting Lisbon. Man United waxay taagan yihiin lacagtiina u baahantiin waa kana laakiin waxaa la isku haystaa ciyaaryahanka ma ogi haddii waxaan waa football haddii ay dhacdo dalab waali ah isbuuci la siinayo 400,000 macquul waaye Swedish waaye waxaa laga yaabaa lacagta badan inuu soo aado horyaalka bilaaw waaye horyaalkaas ka bilaabanayo xilli ciyaareedka dambe wixii la cuni doono ma la yaqaan Man United inay dib usoo laabato lama ogo macquula inuu ku biiro laakiin Sporting Lisbon iyo Man United wada hadalkooda waa dhow yahay Arsenal kaga dhow yahay laakiin ciyaaryahanka wuxuu rabaa kaliya inuu u ciyaaro kooxda Arsenal warka intaas ku dhayahay inta kulmi doona muuqaalka xiga iga sheer garay muuqaalkan laagtaada u baahanahay soo u gaara saaxiibo badan haddii ay tahay markaad kugu wareyso muuqaalka ka soo baxane page ka follow dheh sidaas iyo nabadgelyo